Assalaamu calaykum. Waxaan muuqaalkan kugu soo bandhigi doonaa waxyaabo kaliya laga helo dalka Imaaraadka ee daawasho wacan. Gawaarida askarta Dubai. Dubai waxyaabaha ay caanka ku tahay ayaa waxaa ka mid ah gawaarida ay booliskoodu wataan. Gawaaridan ayaa waxa ay ka mid yihiin gawaarida ugu qaalisan uguna orodka badan caalamka, midaas oo ka dhigtay waddanka ugu horeeya ee booliskiisu leeyahay gawaarida ugu orodka badan uguna qaalisan caalamka. Gawaaridan ayaa waxaa ka mid ah 177 oo qiimihiisu yahay 1.8 milyan oo doolarka Mareykanka ah, Bugatti Veyron oo isagana qiimihiisu yahay 1.7 ilaa 3 milyan oo doolarka Mareykanka ah, iyo kuwo kale oo qaaliya. Dowladda Imaaraadka ayaa waxay gawaaridan ciidamadeeda uga iibisay inay ku soo jiitaan dalxiisayaasha, oo inta badan waxaa laga helaa goobaha ay dalxiisayaasha joogaan. ATM-yada soo saaro dahabka ee dalka Imaaraadka. ATM-yada ayaa waxaa loogu talagalay inaad gashato kaarkaaga kadibna aad kala soo baxdo lacagtii kugu jirtay kaarkaaga ayadoo kaash ah, balse Imaaraadka waxaa laga helaa ATM soo saaro dahabka. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad doorato nooca macdanta aad rabto, kadibna aad geliso qiimaha ay ku fadhiso macdanta. Sidaan ayaad ku qaadanaysaa macdano kala duwan sida dahabka, diamondka, silfarka iyo waxa la midka ah. ATM-kan ayaa waxaa laga helaa dalka Imaaraadka. Sidoo kale waxaa jira meelo kale oo laga helo ATM-kan. Xayawaanada ay xanaaneystaan Imaaraadka. Imaaraadka ayaa wuxuu ka mid yahay wadamada ugu taajirsan adduunka, waana sababta keentay inay xanaaneystaan xayawaanada kala duwan oo ay ka mid yihiin libaaxa, shabeelka, haramcadka iyo kuwo kale oo badan. Sidoo kale waddankan waxaa laga helaa geela ugu qaalisan ee adduunka, wuxuuna qiimihiisu u joogaa 2.72 milyan oo doolarka Mareykanka ah, waxaana iskala dhaxal sugaha Imaaraadka ee Xamdaan bin Maxamed Al Maktoum, wuxuuna iibsaday kadib markii uu geelkan kaalinta koowaad ee quruxda u galay 17,000 oo geel ah. Jasiiradaha gacan ku samayska ah ee Dubai. Dubai ayaa xeebaheeda waxay ku leedahay jasiirado gacan ku samays ah oo lagu magacaabo Palm Islands, waxaana la bilaabay in jasiiradahan la sameeyo sanadkii 2001. Sababta loo sameeyay jasiiradahan ayaa ah in lagu soo jiito dalxiisayaasha. Naqshadda jasiiradan ayaa waxay ka turjumaysaa geedka tamirta ah ee waddankaas ka baxa. Jasiiradan ayaa waxa ay ku fadhiyaan 7 milyan oo mitir square gareysan, midaas oo ka dhigta jasiiradaha ugu weyn oo bani'aadam sameeyo, waxaana samaysay shirkad lagu magacaabo Nakhiil oo laga leeyahay isla dalka Imaaraadka. Lacagta ku baxda jasiiradahan ayaa waxa ay dhan tahay 12 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Beerta mucjisada ah ee Dubai. Beertan mucjisada ah ee afka Carabigana lagu dhaho Xadiiqada Zuhuuri Dubai waa beero ubax oo ku yaala degmo ka mid ah degmooyinka magaalada Dubai. Beertan ayaa ku fadhida in ka badan 72,000 mitir oo square gareysan, taas oo ka dhigaysa beerta ubax dabiiciga ah ee ugu weyn adduunka, oo ay ka muuqdaan in ka badan 40 milyan oo ubax iyo 250 milyan oo dhir ah. Waxaana la sameeyay sanadkii 2013, waxaana sameeyay beertan horjoogaha Cityland Group oo lagu magacaabo Cabdinaasir Raxal oo u dhashay dalka Jordan. Beertan ayaa waxa ay shaqeysaa laga bilaabo bisha 10aad ee Oktoobar, waxayna shaqadeeda joojishaa bisha Abriil, waxayna xirnaataa May ilaa Sebtembar sababo la xiriira heerkul sare oo celcelis ahaan lagu qiyaasay 40 digrii.